kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekadii curad oo aad halkan kala socoteen. sheekadan oo ah qiso dhab ah oo ku dhacday mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa qoraalkan ka sameeyay wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. halkaad kala soconaysaanna waa channelka Ogaalka Audiosom. ku soo dhawaada qaybta xigta qaybtii horay aad u soo dhageysateen. wax badan ayaan halkii ku sugayay Zahra, laakiin ayadu dib iguma aysan soo laaban ilaa aan ku gamay isla meeshii ay iga tagtay. mar baan isiri malaha walaasha naaskii baa qaaday oo dhagarta uu Maxamuud ku geystay ayay diidaysaa inay kula wadaagto. Zahra iyo Maxamuud waa isku bah, haddana maladayda cid aan tuhmin ma jirto, xitaa Zahra oo ahayd qofka kali ah ee garabkayga taagnaa, dhibaatadaydana ay aad u damqaysay. habeenkaas xaafadda shirar gooni ah ayaa ka socday. 2 iyo 3 ayaa loo kala fadhiyay gudaha guriga. Zahra xogta ay raadisay sheekooyin ka sii waaweyn bay la kulantay. inta ay iga maqnayd sida ay u dhagraaricinaysay ayay iska ilowday inaan anigu meel ku sugayay. haddaba maxaa xigay? maalinkii xigay waxaa guriga igu soo maray adeer oo aan isu raacnay xaafadiisa. halkaas ayaan ku wada qadaynay maalinkaas. kadibna wuxuu bilaabay inuu iga qiseeyo xaaladayda. haddaba adeer wuxuu ii sheegay in wax kasta oo dhibaato ah oo soo gaaray ay ka dambeeyaan 3 ruux oo iskaashaday. sidaa awgeed, haddii aan u baahnahay in qisada si toos ah la iiga warramo, ay shuruudda iyo hortaalla ay tahay inaan cafiyo marka hore dadkaas cid walba oo ay noqdaan. waxaan anigu markiiba la soo booday, waa Maxamuud, cid kale ma ahan. waan la socdaa wax walba adeer, wax 3 la yiraahdo ma jiraan ee waxba yaan la qarin. intaas markaan idhi ayuu adeerna yidhi, haa waa gartaa, waayo 3 ruux maba ahan dad aad ku fikiri karto inay dhibaatadan oo kale kaaga iman karto ama ay xitaa ku fikiri karaan. laakiin waxaad Maxamuud u leedahay waan dareemayaa oo waa ruuxa kali ah ee kuu soo bareeray oo kugu yidhi waad xanuunsan tahay. 6 iyo 10 ba ha ahaadaane hadday rabaan, soo Maxamuud kuma jiro horta. hadalkaas ayaan adeer ku celiyay. wuxuu ku jawaabay maya maya maya, wallaahi baan ku dhaartay Maxamuud wuxuu ahaa qofka kaliya ah ee la waashay xaaladaada. wax kasta oo dadaal ah oo uu awoodayna wuu u sameeyay dartaa. wuxuuna ahaa qofka ugu horeeyay ee ka warhelay dhagarta lagugu sameeyay. sidaa darteed ayuu islahaa inta aanay dhibaatada wiilkan ku soo weynaan ka gaar hadda. markasta wuxuu rabay adigoo aan waxaan gudaha u sii gelin inaad hesho daawo ama aad hesho caafimaad. afkaygii baa kala tegay. yaab iyo qiiro ayaa hal mar dareemahaygii buuxiyey. waxa aan maqlayo marunbaa mise waa ruwaayad? walle arinku ma sahlana. adeer wuxuu sii watay hadalkiisa. wuxuu iigu yidhi, iska badaa dadkaas waxaa muhiim ah inaad ogaato inaad tahay adigu qof 24 saac aan si buuxda u caafimaad qabin. waxaad u baahan tahay quraan badan si lagaaga maydho dhagarta lagu geystay. waxaa toddobaadkan soo socda oo imanaya 2 ka mid ah raggii maqnaa. waa walaalahay oo uu ku jiro ninka Khaalid ah. waa walaalkay degan UK ee aan anigu horay ugu dhib sheegtay. marka ay yimaadaan ayaa lagu saarayaa quraan buuxa, ayagana afkooda kaga sheegaya cidda samaysay falkan iyo sida loo dhigay. ayagu waxay moog yihiin ma jirto. maalmihii u dambeeyay arinkaaga si xoog leh baan uga wada hadlaynay. marka dul qaado oo waxba haysta dejin. u kaadso inta ay naga soo gaarayaan raggaas. ayaga ayaa leh halka arrintan.
marka hore adeer wuxuu rabay inuu ii sheego cidda ay yihiin saddexda ruux ee i dhagray aniga, laakiin markuu arkay shucuurtayda aadka u kacsan ayuu is yidhi armuu wiilkan hadhow geystaa dhibaato marka yaanay eed kaaga iman, isagana yuusan dembi ka raacin waraad u sheegtay. waxaana la hagaagsanaatay inuu ila sugo imaanshaha walaalahay oo aanba anigu markii hore war u hayn. sidoo kale wuxuu adeer ila socodsiiyey in ragga ila dhashay qofka aadka igu jecel uu yahay Maxamuud, arrintanna aanan mar dambe ku sii tuhmin isaga. si uu ii kalsooni geliyo ayuu mar walba hadalkaas dhaar raacinayay. anigoo foorara ayaan idhi waayahay adeer, waana ka soo tegey. intaan u soo socday xaafadayda waxaan daadiyey ilmadii iigu badnayd abid ee indhahayga soo dhaafta. qof kasta oo iga hor yimaada waddada isagoo isii eegaya ayaan isdhaafaynay. waxaa laabtayda gubaya ayaa ah waxa aan qalbiga ugu hayay walaalkay jecel. sidoo kale malada shaydaanka heerkaa ay ila gaartay. waxaa niyadeyda ku soo istaagtay maalintii aan islahaa ku fashil Maxamuud gudaha xarunta ilaajka. malaha maalinkaas ilaa wuxuu iga baajiyey dulmi iyo gaf weyn oo aan gaarsiin lahaa walaalkay Maxamuud. waan ahayn laba ruux oo dabeecad ahaan aan heshiin badi, laakiin marna ma ahayn dad xurmada iyo jacaylka walaalnimo tiray. markaan soo gaaray guriga waxaan iska galay qolkayga oo aan hoosta ka xidhay. waxaan galay fikir dheer iyo qoomamo. waxaan bannaacay maanta inuu qof iiga warramo xaaladayda bes intaa igu filan. haddana weli waxa igu taagan waa kuwee saddexdaas ruux ay noqon karaan. hadda iyo tuhun dad kale oo hor leh waa dhibaato. markasoo dantu ma ahan inaan sugo toddobaadkaas ay soo socdaan walaalahay. waa sida ila qumanaatay. ugu dambaynna aan u arkay xalka. la soco qaybta 12.